waxaa maanta garoonka Kismaayo ku soo dhaweynayna ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waxa weeyaan muddo 3 maalmood aan sugaynay madaxda wuxuu kaaga dugan yahay la soo dhaweyn jiray muddo 3 maalmood aan sugaynay ra'iisul wasaaraha aan u taagnayn soo dhaweyntiisa ما شاء الله ما أنتنا نكون فرحسنا مدام الرئيس وزراء الصومالية عن كسر دويني مجال كسمايو. مدرن الرئيس وزراء عن كسر دويني هالكل دقيقة كسمايو وما وكل فرن كلون شيلان كبيز دوان يكرر جيل. magacayga waa qaali cali cadow waxaa maanta banaankan u taaganahay garoonka oo 3 maalin iyo 3 habeen aan diyaar galo ugu jirnay ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaynaa halku dhigiisii ahay kal furan kaluun shiilan iyo kimis duban iyo karuur geel waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow kal iyo laaban ku soo dhaweynaynaa hadaana shacabweynaha Jubbaland سلام رئيس الوزراء وسلام مدير رئيس الوزراء وحسن أشرف على ديار وطبيعة كتنسن دولة قلوات جبلان مدير كسانوو مدير رئيس الوزراء waxaan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyn ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo booqasho shaqo loogu yimid joogina doona dhowrka cisho soo socota waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare ku soo dhawow magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland waxaan isleeyahay waa marti kumantii deegaankaagii waa timid waa dalkaagii وأنا كذا الوزراء واحد قاعد بانو فرحسنا أنا اعتماده عندنا كفتن كدر سوا دولة فدرالك ودولة الصومالية واستديا ودولة الصومالية كل مسؤول ككاه مركعين سعد كينو يراده سقلي إنه يراته قعنتي إنه يراته عاد كينو كي يراده استديا وحياة عريس كتير توي تامرك عربنا أنا نديش إنه inaynan martina cid u ahayn deegaankiina ay tahay mas-uuliyaddiina saaran ay tahay dhulkaad xukuntaan ay tahay ku soo dhowaada
waxaan rajaynayaa insha Allah inaan wixii wada hadal iyo wixii shaqada soo baxday la isugu yimaadaan in kala hadli doono aad baan idinku soo dhaweynaynaa soo dhow ra'iisul wasaare madaxweyne Axmedoobe iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo dhammaan golihiisa wasiirada ciidamada reer Jubbaland xildhibaanada iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland gaar ahaan shacabka reer Kismaayo aan aaminsanahay ilaa maanta oo dhan inay noo taagnaayeen si noo soo dhaweeyaan maalmihii ugu dambeeyayna ka shaqeynayay inay soo dhaweeyaan wafdiga aniga oo ra'iisul wasaare aan hogaaminayo ay qayb ka yihiin wasiirro badan oo ka mid ah golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo xildhibaano kale oo iyaguna ka socda golaha shacabka waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen waxaa kaloo halkan ka muuqata farxad iyo rayn waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sida aan u dardargelin lahayn wada shaqaynta ka dhaxaysa dawlad goboleedka Jubbaland iyo dawladda federaalka sidoo kale waxaa wasiirada ila socda iyaguna ay u yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhigooda waxaa kaloo ila socda taliyaasha ciidamada oo iyaguna sidaas oo kale halkan u yimid inay shaqo qaran ka qabtaan waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta waxaan aad ugu faraxsanahay maalmahan idinla joogi doono wixii shaqa iyo hadalna way noo dambeeyaan aad u mahadsantahay madaxweyne adiga iyo madaxda kale ee Jubbaland waa mahadsantiin waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu nagala soo qayb galo booqasho ugu yimaado ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka xasan cali khayre iyo wafdiga hogaaminayo oo ay la socdaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha booliiska mudane ra'iisul wasaare iyo wasiirro saaxiibada hoostaagan ku soo dhawow magaalada Kismaayo kaafiso iyo shacabkeeda madaxweyne Axmed waa mahadsantahay dhammaan adiga iyo madaxda kale ee reer Jubbaland waa idin mahad celinayaa soo dhaweynta diiran aniga iyo wafdigayga oo ay ugu horeeyaan wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada Soomaaliyeed laakiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa shacabka reer Kismaayo shacabka reer Kismaayo waa u mahad celinayaa guud ahaan shacabka reer Jubbaland waa u mahad celinayaa halkan waxaa ka muuqata farxad iyo rayn waa ogahay inaad qoraxda taagnaydeen waa ogahay inaad na sugayseen laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas iyo si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu waxaana aad idinkaga mahad celinayaa qoraxda aad taagnaydeen waxaan leeyahay ilaahay ha idin dhib yareeyo laakiin soo dhaweynta waa idinka qabnaa waxaan rabaa keliya ugu dambayntii annagoo isarki doonna intaan magaalada joogno kalkii horoo nimid Kismaayo waa u sheegay madaxweynaha in magac cusub loo bixiyo qoraalkiina ma arag
anigu ayaantii waxaan idhi madaxweynuhu kismaayo ugu imow maxaan idhi kal furan kibis duban kalluun shiilan haddana kaafisaa laydinkugu daray waana oggolahay waa mahadsantihin bismillaah magacaygu waa ubax yuusuf cadaani waxaa maanta garoonka kismaayo ku soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaa weeyaan muddo 3 maalmood aan sugaynay madaxda wuxuu kaaga dugan yahay la soo dhaweyn jiray muddo 3 maalmood aan sugaynay ra'iisul wasaaraha aan u taagnayn soo dhaweyntiisa maasha Allah maanta aan ku faraxsanahay maadaama ra'iisul wasaarihii Soomaaliya aan ku soo dhaweynay magaalada Kismaayo mudan ra'iisul wasaare waxaan kugu soo dhaweynaynaa halku dhigaaga ah Kismaayo ma uu kal furan kalluun shiilan kabis duwan iyo karuur geel magacayga waa qaali cali cadow waxaa maanta bannaankan u taaganahay garoonka oo 3 maalin iyo 3 habeen aan diyaar galo ugu jirnay ra'iisul wasaaraheena xasan cali khayre waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaynaa halku dhigiisii ahay kal furan kalluun shiilan iyo kimis duban iyo karuur geel waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow kal iyo laab baan ku soo dhaweynaynaa haddaanana shacabweynaha Jubbaland سلام رئيس الوزراء وسلام مدير رئيس الوزراء وحسن أشرف على ديار وطوبيا كاترسن دولة قلوات جبلان مدير كسانوو مدير رئيس الوزراء
ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo booqasho shaqo loogu yimid joogina doona dhowrka cisho soo socota. waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare ku soo dhawow magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland. waxaan isleeyahay waa marti kuma tihin waa deegaankaagii waa timid waa dalkaagii waa dhulkaad ra'iisul wasaaraha u ahayd. aad baan ugu faraxsanahay inaad timaado. haddaan kaftan ku darsado dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliyeed oo isteedyada oo dhan iyo Soomaaliya kulli mas'uulka ka ah. marka in socodkiinu yaraado oo shaqadiinu yaraato oo gacantiinu yaraato oo codkiinu ku yaraado isteedyada waxoogaa waa arrin iska jirta wey. taa marka waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inaydan martina cid u ahayn deegaankiina ay tahay mas-uuliyaddiina saaran ay tahay dhulkaad xukuntaan ay tahay ku soo dhowaada. waxaana rajaynayaa insha allahu inaan wixii wada hadale iyo wixii shaqeea soo baxday la isugu yimaadana idin kala hadli doono. aad baan idinku soo dhaweynaynaa. soo dhow ra'iisul wasaare. madaxweyne Axmedoobe iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo dhammaan golihiisa wasiirada ciidamada reer Jubbaland xildhibaanada iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland gaar ahaan shacabka reer Kismaayo aan aaminsanahay ilaa maanta oo dhan inay noo taagnaayeen si noo soo dhaweeyaan maalmihii ugu dambeeyayna ka shaqeynayay inay soo dhaweeyaan wafdiga aniga oo ra'iisul wasaare aan hogaaminayo ay qayb ka yihiin wasiirro badan oo ka mid ah golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo xildhibaano kale oo iyaguna ka socda golaha shacabka. waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen. waxaa kaloo halkan ka muuqata farxad iyo raynrayn. waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sidaan u dardar gelin lahayn wada shaqaynta ka dhaxaysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka. sidoo kale waxaa wasiirada ila socda iyaguna ay u yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhigooda ah. waxaa kaloo ila socda taliyaasha ciidamada oo iyaguna sidaas oo kale halkan u yimid inay shaqo qaran ka qabtaan. waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta. waxaan aad ugu faraxsanahay maalmahan idinla joogi doono. wixii shaqa iyo hadalna way noo dambeeyaan. aad u mahadsantahay madaxweyne adiga iyo madaxda kale ee Jubbaland waa mahadsantihiin. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu nagala soo qayb galo oo booqasho lagu yimaado ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Xasan Cali Khayre iyo wafdiga hogaaminayo oo ay la socdaan taliyaasha ciidamada qalabka sida Soomaaliya taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha booliiska mudane ra'iisul wasaare iyo wasiirada saaxiibada hoostaagan ku soo dhawow magaalada Kismaayo kaafiso iyo shacabka madaxweyne Axmed waa mahadsan tahay. dhammaan adiga iyo madaxda kale ee reer Jubbaland waa idin mahad celinayaa soo dhaweynta diiran aniga iyo wafdigayga oo ay ugu horeeyaan wasiirada iyo taliyaasha ciidamada Soomaaliyeed. laakiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa shacabka reer Kismaayo.
shacabka reer Kismaayo waa u mahad celinayaa guud ahaanna shacabka reer Jubbaland waa u mahad celinayaa halkan waxaa ka muuqata farxad iyo reynreyn waa ogahay inaad qoraxda taagnaydeen waa ogahay inaadna sugayseen laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas iyo si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu waxaana aad idinkaga mahad celinayaa qoraxda aad taagnaydeen waxaan leeyahay ilaahay ha idin dhib yareeyo laakiin soo dhowaynta waa idinka qabnaa waxaan rabaa keliya ugu dambayntii annagoo isarki doonna intaan magaalada joogno kalkii horoo nimid Kismaayo waa u sheegay madaxweynaha in magac cusub loo bixiyo qoraalkiina ma arag anigu ayaantii waxaan idhi madaxweynuhu Kismaayo ugu imow maxaan idhi kal furan kibis duban kalluun shiilan haddana kaafisaa laydinkugu daray waana oggolahay waa mahadsantihiin بسم الله مجيء وأوحي سفعداني محمد جرونك كسماية كسر دويننا رئيس الوزراء حسن علي قيرة وحاول مدة 6 مaalmood aan sugaynay madaxda wuxuu kaaga dugan yahay la soo dhaweyn jiray muddo 3 maalmood aan sugaynay ra'iisul wasaaraha aan u taagneyn soo dhaweyntiisa ما شاء الله maanta aan ku faraxsanahay maadaama ra'iisul wasaarihii Soomaaliya aan ku soo dhaweynay magaalada Kismaayo mudan ra'iisul wasaar waxaan kugu soo dhaweynahay halku dhigaaga ahaa Kismaayo ma oo kal furan kalluun shiilan iyo kabiis duwan iyo karuur geel magacayga waa qaali cali cadow waxaa maanta banaankan u taaganahay garoonka oo 3 maalin iyo 3 habeen aan diyaar galo ugu jirnay ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaynaa halku dhigiisii ahay kal furan kalluun shiilan iyo kimis duban iyo karuur geel waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawow kal iyo laaban ku soo dhaweynaynaa hadaana shacabweynaha Jubbaland سلام رئيس الوزراء وسلام مدن رئيس الوزراء وحسن أشرف تعالى ديار وطبيا كتنسن دولة قلوات جبلان مدن كسانوو مدن رئيس الوزراء
waxaan aad ugu faraxsannahay inaan soo dhoweyno ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo booqasho shaqo loogu yimid joogina doona dhowrka cisho soo socota. waxaan leenahay mudane ra-iisul wasaare ku soo dhowow magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland. waxaan isleeyahay waa marti kuma tihid, waa deegaankaagii, waa timid, waa dalkaagii, waa dhulkaad ra-iisul wasaaraha u ahayd. aad baan ugu faraxsanahay inaad timaado. haddaan kaftan ku darsado, dowladda federaalka ah waa dowladda soomaaliyeed oo isteydyada oo dhan iyo soomaaliya kulli mas-uulka ka ah. marka inuu socodkiinu yaraado oo shaqadiinu yaraato oo gacantiinu yaraato oo codkiinu ku yaraado isteydyada waxoogaa waa arrin iska jirta wey. taa marka waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inaynan martina cid u ahayn, deegaankiina ay tahay, mas-uuliyaddiina saaran ay tahay, dhulka qabataan ay tahay. ku soo dhowaada. waxaana rajaynayaa insha allahu inaan wixii wada hadala iyo wixii shaqee soo baxday la isugu yimaadana idin kala hadli doono. aad baan idinku soo dhoweynaynaa. soo dhow ra-iisul wasaare. madaxweyne Axmedoobe iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo dhammaan golihiisa wasiirada, ciidamada reer Jubbaland, xildhibaanada iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland, gaar ahaan shacabka reer Kismaayo oo aan aaminsanahay ilaa maantoo dhan inay noo taagnaayeen si ay noo soo dhoweeyaan, maalmihii ugu dambeeyana ka shaqaynayay inay soo dhoweeyaan wafdiga aniga oo ra-iisul wasaare aan hogaaminayo. ay qayb ka yihiin wasiirro badan oo ka mida golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo xildhibaano kale oo iyaguna ka socda golaha shacabka. waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhoweyseen. waxaa kaloo halkan ka muuqata farxad iyo raynrayn. waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sida aan u dardargelin lahayn wada shaqaynta ka dhaxaysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka. sidoo kale waxaa wasiirada ila socda iyaguna ay u yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhigooda ah. waxaa kaloo ila socda taliyaasha ciidamada oo iyaguna sidaas oo kale halkan u yimid inay shaqo qaran ka qabtaan. waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhoweynta. waxaan aad ugu faraxsanahay maalmahan idinla joogi doono. wixii shaqaa iyo hadalna way noo dambeeyaan. aad u mahadsantahay madaxweyne, adiga iyo madaxda kale ee reer Jubbaland. waa mahadsantihiin. waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inuu nagala soo qayb galo oo booqasho loogu yimaado ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka xasan cali khayre iyo wafdigu hogaaminayo oo ay la socdaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyaha booliiska, mudane ra-iisul wasaare iyo wasiirro saaxiibada hoos taagan. ku soo dhowow magaalada Kismaayo, kaafiso iyo shacabkeeda. madaxweyne Axmed waa mahadsan tahay. dhammaan adiga iyo madaxda kale ee reer Jubbaland waa idin mahad celinayaa soo dhoweynta diiran aniga iyo wafdigayga oo ay ugu horeeyaan wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada Soomaaliyeed. laakiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa shacabka reer Kismaayo.
shacabka reer Kismaayo waa u mahad celinayaa guud ahaanna shacabka reer Jubbaland waa u mahad celinayaa halkan waxaa ka muuqata farxad iyo raynrayn waa ogahay inaad qoraxda taagnaydeen waa ogahay inaadna sugayseen laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas iyo si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu waxaana aad idinkaga mahad celinayaa qoraxda aad taagnaydeen waxaan leeyahay ilaahay ha idin dhib yareeyo laakiin soo dhowaynta waa idinka qabnaa waxaan rabaa keliya ugu dambayntii annagoo isarki doonna intaan magaalada joogno kalkii horoo nimid Kismaayo waa u sheegay madaxweynaha in magac cusub loo bixiyo qoraalkiina ma arag anigu ayaantii waxaan idhi madaxweynuhu Kismaayo ugu imow maxaan idhi kal furan kibis duwan kalluun shiilan haddana kaafisaa laydinkugu daray waana oggolahay waa mahadsantihiin